السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبل إني معقلة هيد وما عرفتي إن هودا يدون صومرينيسا سلام قالي إن لما أنتي سادو لتهين إن dadkii hore ila joogay markasta sidee caado tahay waan idin salaama meeshiina ku salaamantihiin waadna ku mahadsantihiin dadka cusub ee igu soo kordhay iminka igu soo biiray ma aragtay idinkan aad baan idin salaamaya idinna soo dhaweynaya gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhawaada insha Allah waxaan caawa idin wadaa program waa aniga mararka qaar ka hadla waxyaabo ma aragtay dhiirigelin ah oo ma aragtay qofku waxa la yiraahdaa ninkii galay laga wareystaa qofku qof haduu yahay ma aragtay iska la oran karo dhalinyarada cuslaatay dabcan waa aragtinimo iyo ma aragtay experience nolosha ugu filan u leeyahay dabcan waxa wanaagsan inaad wixii aad dadka u faa'iideysid hadeer waxa laga yaabaa dad badani inaan waxaan ku hadlay already ay garanayaan ama ay ku dhaqmaanba laakiin waxa ka badan inta ma aragtay aan waru haynin hadeer waxa laga yaabaa gabadh yar oo miskiin ah oo ma aragtay qurbahan ku bilowday family ama wadankii ha joogto ama qurbaha joogto meel ay joogtaba ma aragtay on khibrad iyo ma aragtay experience iyo ma aragtay wisdom iyo waayo aragtinimo midna aan lahayn waxa laga yaabaa inay YouTube iska soo gasho oo videogan oo kale uu soo boodo ama kuwa la mid ah oo marka intay fariisato ay dhageysato ay wax ka faa'iideysato ayaa laga yaabaa ama hal qodob ama laba qodob ay kala baxdo marka aniga guul waxa igu filan hal qof ama laba qof inuu ka faa'iido programmadan waqtiga aan soo qaato ee waqtiga aan galiyo on hawada idin soo mariyo intaas ay aniga guul igu filan runtii haddii hal qof ama laba qof ay wax ka qaataan oo ma aragtay ay wax ku faa'iidaan anigu markaa jirjir baan u jiifaa muhiimadeedu waa intaas marka caawa waxaan idin wada waxa weeye waa programka hooyooyinka hooyo xay ah sidee lagu noqdaa hooyo caafimaad qabta oo ma aragtay caruur wanaagsan soo saari karaysa sida lagu noqdo adigu se ma tahay hooyo xay ma tahay oo caafimaad qabta oo ma aragtay oo caruur soo saari karaysa ma tahay ama sida lagu noqdo hooyada caafimaad qabta ama xayiga ah caafimaadkana caafimaadkii kama hadlayo caafimaadkay cudurku ahaa kaas ka hadli maayo inta caafimaad qabta ilaahay ha u kordhiyo caafimaadkooda ha u siyaadiyo intaan caafimaad haysan ilaahay caafimaad ha siiyo kaa kama hadlayo laakiin isku soo duuduuba waxaan ka hadlayaa hooyo xayi ah oo ma aragtay ad adag sida lagu noqdo kow marka u horeysa qodobka tan ku bilaabaya waxa weeye adigu waa inaad ahaatid marka hore qof ninkii tiisaba daryeela ayaa tukala ku dara ayaa la yiri adigu waa inaad tahay bal marka hore qof ma aragtay tiisii meel u saaran tahay oo tiisa isagu meelay u taalo oo markaas ayaad caruur wax ku kordhin karaysaa ama nin wax ku kordhin karaysaa ama bulsho aad wax ku kordhin karaysaa ama ummadda ilaahay aad wax u qaban karaysaa waaya markaan taa ka gudbo hooyada xayiga ah sidee lagu noqdaa weeye kulley dadku isku mid maaha qof walba ilaahay wuxuu siiyey karti gaar uu siiyey garasho gaar ayuu siiyey ma aragtay wuxuu siiyey yani waa la kala duwan yahay ummadda ilaahay isku mid ma aha hooyana waa la ogyahay hawsheeda runtii wax ma aragtay fudud ama la dhayalsan karo ma aha runtii hooyo ama qurbaha ilmaha ku koriso ama wadankii ha joogto mar walba hooyo hawsheedu way badantay laakiin aniga ahaan wixii aan experience-gayga soo arkay oo ma aragtay aan yani ayaan jeclaystay inaan idinla share garayo idinkana waxaan idin weydiinayaa bal hooyo nooc ma ah ayaa tahay ama dadku kugu tilmaamaan ama adigoo naftaada aad ka rumaysan tahay inaad tahay bal commentiga igu soo qora insha Allah waaya marka u horeysa waxaad arkaysaa ma aragtay waxyaabo badan oo runtii ka yaabiya wadankii anigu ma garanayo laakiin waxaan ka hadli karaa inta aan ma aragtay qurbaha joogay waxa aan ku arkay more than 20 years anigu aan qurba joogay wax aan yarayna waan arkay ama wax aniga isaameeyay ha ahaadaan ama wax ma aragtay bulshada saameeyay ha ahaadaan indhahay ku arkay oo ma aragtay wax badan baan soo joogay si ay ahaataba marka u horeysa wadankii hadii la joogo dee already afkeeni baa laga hadlaa hooyo oo yani wax badan uma baahneed
laakiin marka aad joogtid qurbo hawshu intaa way ka culus tahay wayna ka ballaarantay runtii xaqiiqatan meesha doontaba qurbaha ka joog ama North America ka joog ama Europe ka joog anywhere meeshii aan waddankeennii ahaynba ka joog waa qurbo wali oo waayo dabcan waxaa lagaga hadlaa luuqad iyo lahjad u gaar ah meesha iyada ah ee aad joogtid waayahay marka hooyada xayiga ah waxaad ku noqon karaysaa dabcan hadday kugu dhacdo oo ku qabsato anigu waxaan la share gareynayaa waxa experience-gayga ah ee maaragtay khibradda aan u leeyahay ama aan soo arkay ama aan soo joogay marka u horeysa waxa weeye inaad luuqadda aad culays ka saartid waddanka aad joogto meeshuu doonaba ha ahaadee bal luuqadda inaad baratid si aad usoo saartid caruur wanaagsan oo caruurtii barito markay korto waxaa la doonayaa inaad dee luuqadda ay ku hadlayaan aad kula hadli karaysid ama aad fahmi karaysid ayaa la doonayaa marka hooyadu waa inay focus ka saarto diiradda ay saarto inay luuqadaas ku mintido oo say doontaba ha ahaatee ama iskuul waqti ha u hesho oo iskuul ha u gasho ama galaasyo badan oo waxaa jira waxyaabo badan oo laga baran karo online baa jira ama galaasyo online ku qaado si ay ahaataba waxaad ku noqon karaysaa hooyo xay ah oo barito caruur ayatin lasoo saari karaysaa inaad luuqadda aad baratid waddanka aad ku ilmo dhashay lagaga hadlo taasi waa kow luuqaddu lahjadu waa kow wax aada u muhiim ah oo hadda markaad suuqa tagtid suuqii waxaad doonaysaa waxaad ku adeegatid markasta turjubaan ma heli karaysid iyo qof walaala oo kula socdo kuu turjubaana qof walba tiisii haysato qurbaha waynu is ognahay cusbitaalkii markaad ilmihii geysid ama naftaadaba adigu aad u tagtid waxaad doonaysaa wax dadkii dhaqaatiirtii iyo neerskii iyo aad ku afgaratid waad helaysaa serviceyo badan oo ma aragtay turjubaano ah laakiin badi meelo badan oo aadan ka heli karin baa jira marka luuqaddu runtii xaqiiqatan ilmaha marka hadhow uu guriga kuula yimaado homework waxaa la doonayaa inaad kala shaqaysid oo ma aragtay marka aad isku soo duuduub luuqaddu lahjadu waa wax aada u muhiim ah marka lahjada inay hooyada Soomaaliyeed ay saarto oo ay barato waa wax aada u muhiim ah hooyooyin badan waxaad arkaysaa 5 sano 10 sano 20 sano joogay Mareykan ama Canada oo kale ama meelahaas qurbahaas meelay ahaataba oo ma aragtay aan luuqadii intii basic ahayd ee biyo baan ku cabi karaynin ayaad arkaysaa ya marka taasoo kale looma baahan runtii hooyadaasoo kale caruurtaya leh xaqiiqatan ma soo saari karayso waaye markaan aan ka gudbo lahjadu inay muhiim tahay qodobka labaad waxaa weeye hooyo inaad tahay adigu isku tashatay oo dhexda xiratay ama nini ha kuu joogo ama yuusan kuu joogin haddeer North America gabadha badan waxaad arkaysaa la qabo oo xaasas ah haddana xaqiiqatan nimankooda aan meel ayan ku wada noolayn oo majority oo is ognahay Soomaali baynu nahay raggoodu waa traaglayaal haye traagla jidku ku jira bil 2 bilood 3 bilood whatever waxay ahaato haye adigii caruur baad haystaa guriga aad joogtaa ninkuuma joogo wuu ku qabaa laakiin ninkuuma joogo maxaad samaynaysaa marka waxaa la doonayaa hooyo isku tashatay oo adag inaad tahay waqti badan inaadan iska gelin heblaayo dircay xidhnayd iyo dahabkay xidhnayd iyo alaabta u taalay iyo heblaayo inaad yani gabdho xamatid kula mid ah iyo waxyaabaha inaadan ku mashquulin oo focus ka saarin runtii oo bal taada adigu aad isku tashatid oo adigu taada aad focus ka saartid waayo runtii dagaal baa lagu jiraa qurbeynu ku noolahay yani waddan waxaynu ku noolahay gaalaynu la noolahay caruur ayaynu korsanayna islaam aynu nahay marka hooyadaas waxaa la doonayaa halgan badan inay gasho hooyo habeen kasta sii labisan oo aroos tagaysa ma aragtay caruur wanaagsan ma soo saari karayso xaqiiqatan markay runta isku sheegno hooyo ku jirta war iyo xasarad iyo halkan baa ka dhacday halkan bay ka dhacday halkan bay ka dhacday caruur ma soo saari karayso marka adigu isku tasho ama nin ha kuu jooga ama aysan kuu joogin geeri baa dhici karta xitaa ninku hadduu kula degan yahay kula joogo geeri baa dhici karta ma aragtay waxaa dhici kara maxaa la odhanayay qofku wuu dhiman karayaa naftan la iskalama ballamin calaf baa jira qofkii waad kala tagi kartaan geedi wax la yidhaahdaa jira yani waxyaabo badan marka adigu dhexda xiro
caruurtaada focuska saar sidii aad ugu mashquuli lahayd ood caruur hagaagsan oo berita naftooda iyaga wax ku kordhiya ama bulshada ay la nool yihiin wax ku kordhiya inaad soo saartid. waaya taasi waa qodobkii labaad saan jeclahay. okay, ka saddexaad ayaan u gudbayaa. gabdho waxaad arkaysaa haddeer ninkooda oo la nool uu la joogo maxaa la dhahayay oon weligood jeeg qorin. biilasha guriga laga bixiyo waxay ahaataba weligood jeeg aan qorin ayaad arkaysaa, oon weligoodba biil bixin. gabdho waxaad arkaysaa ninkooda waxa uu sameeyo iyo waxa uu hayo iyo inta qarash guriga ku baxda aan waru hayn baad arkaysaa, oo halkaa iska fadhiisto oo ku jira nin baa noo jooga. ya hooyadaas hooyo caafimaad qabta mata mise hooyo xaya mata? waa maya, ma ahan. adigu waa inaad socotid ood wax walba aad og tahay berrito markay wax dhacaan si aad u badbaadid, caruurtaadana aad u badbaadisid. inaad meel jiifsatid ma ahan. hooyo waxaad arkaysaa waddanka 5 sano 10 sano joogtay ama 15 sano oon laysan bahaysan, weligeed bagaari wadin, oo ama dadkaa barida ama ma aragtay ninka un ku xidhan. lama doonayo. markasta waa adigu qof ahaatid independent ah. waa lagu qabaa, it doesn't mean adduunyada inaad wax ka qabsan karin. iyadoo lagu qabo ayaad adduunyadaada aad wax hadoontaad ka qabsan kartaa ood samaysan kartaa adoo nina isku xidhin. ma garat? markaa taasina waa wax aada u muhiim ah inay hooyadu markasta ay heegan tahay oo ma aragtay aad ku fakartid berrito sidii caruurtan aad ku badbaadsan lahayd hadday wax dhacaan. okay, hooyo waxaad arkaysaa haddeer hooyo kale oo Soomaaliyeed oo caruur xanuunsanaysa haysata oo ma aragtay xoogaa ama caruurtii ay ka halaabeen oo ay suuqa ka galeen. waxaad arkaysaa wax ka sheegaysa oo xamanaysa ayaad arkaysaa. hooyada hooyo caafimaad qabta ma la odhan karaa? weeye may ma ahan. caruurtan aad xamanaysid wax ka sheegaysid ama beerta galay ama maxaa la odhanayay ama waxay doonaanba ha ahaadaane waa caruurtan aad dhashoo kale weeyaan. waa caruur Soomaaliyeed. ya subxaan allah. marka gabar Soomaaliya oo walaashaa ah marnaba waxba ha ka sheegin. wax haddaadan u qaban karaynin oodan caawin karaynin afkaaga ka hayso. waayo adduunyadani waa garaana. waxaa laga yaabaa berrito waxa gabadhaasi ku jirtay inuu bal ilaahay ka bixiyo, ilaahay ka badbaadiyo oo adiga kugu soo weecato ayaa laga yaabaa. marka gabadhay adigu taada walaal ma aragtay ka adkow oo taada unbaa lagu quusayse bal taada ka adkow intaad caruuro kale ku mashquul lahayd gabar kale dhashay. subxaan allah. waxaasna hooyo caafimaad qabta lama odhan karayo iyo hooyo xayi ah. hooyada xayiga ah waa ta danaheeda ku foofta oo horumarkeeda say nafteeda u gaarsiin lahayd ama caruurteedan ay ma aragtay horumar ay u gaarsiin lahayd ama bulshada ay ku nooshahay horumar yacni ay ka muuqan lahayd. waa hooyada xayiga ah ee caafimaad qabta. waa hooyada noocaas. hooyada actually qurbaha laga doonayaana waa hooyada noocaas. haddaadan ahayn waxa weeye waa dhibaato runtii. waqti ha isaga lumin waxaan ku qusaynin. hore u soco. caruurtaada ma aragtay maxaa la dhahay ku foof, danahaaga ku foof, adigu meel iska soo saar. waayo caruurtan way korayaan. maalinba waxaad maraysaa jaranjar weeye ma aragtay noloshoodu xaqiiqatan. markaa si aynu u noqono hooyooyin ma aragtay hagaagsan oo caruuro qurux badan soo saari karaya oo ma aragtay naftooda wax caruurtu ay u tari kara ama ummadaha kale ummadda wax u qaban kara. waa in marka hore inagu aynu sasaxno oo dib isugu noqono. ya oo waxa kaa qaldan aad ogaatid oo saxdid ayaa la doonayaa. marka waxaan rabaa insha allah intaa inaan caawa kusoo koobo. ta kale waxaa weeye runtii xaqiiqatan pointigan muhiimka ah ayaan rabaa inaan sheego intaanan ka bixin actually. hooyo waxaa la doonayaa in adigu
aad waqti naftaada siisid naftaada xaq bay kugu leedahay waa loogayaa carruur baynu ku mashquulsannahay ma aragtay hawshu way kugu badan tahay wax walba waxaad jeceshahay inaad ma aragtay aad carruurta aad ka hormarisid waxyaabaha kaleeto saas way wanaagsan tahay waa sida la doonayo laakiin adigu ninkii tiisa wadayartu kale ku daraa layidhi bal adigu xaq waxaad u leedahay waxa la yidhaahdo me time inaad qaadatid me time waa waqti adiga kuu gaar ah adiga naftaada carruur shaqo kuma leh nin shaqo kuma leh adiga shakhsiyadaada me time ayaad u baahantahay waxa la yidhaahdo inaad qaadatid yaa time out ayaad u baahan tahay aad naftaada aad ku soo nooleysid ama ma aragtay more energy aad naftaada soo gelisid waaye me time-ka maxaa la doonayaa dadku way kala duwan yihiin waxaad tegi karaysaa meelaha saaloonada timahaagaad soo dhaqan karaysaa soo kalaraysan kartaa maxaa la dhahay cagaad iska soo dhaqi kartaa iyo gacmaha taasi waa relaxation oo wax loo baahan yahay meelaha waxaad tegi kartaa dadka lagu masaajeeyo waxaad tegi kartaa maxaa la dhahay waad socon karaysaa 30 minutes saacad socod kaliya exercise waxaad tegi kartaa meelahan ma aragtay exercise caadi aad soo ciyaari karaysaa haddaad taqaani sida loo dabaasho waad soo dabaalan karaysaa haddii aad ma aragtay doonaysid haddaad doonaysid xitaa banaanka haba u bixin albaabkaaga hoosta kasoo xiro wixii adigu marka aad ku qanacsan tahay ama yooga yar ma aragtay yoga ku samaysay qolkaaga ama xitaa kutub soo qaadato ee kutubka akhrisa kutubku waa wax loo baahan yahay waa qur-aankii ilaahay inaynu barano wax muhiim ah kutubka soo qaada dhowr suuradood ka akhri ama naab qaado naftaada u qaado saacad 2 saac naftaada u qaado marka hooyadu waa aad bay muhiim u tahay maadaama hawshu inay ku badan tahay oo qurbo lagu nool yahay oo daal physically iska dhaafay xitaa mentally dadku ay u daalan yihiin waxaan kugula talin lahaa gabdhaha Soomaaliyeed inaad waqti naftiina aad siisid ilaahu may 30 minute ahaato 15 minute ahaato saacad ahaato waxay doontaa ahaato inaad naftaada bal aad gelisid si aad hooyo caafimaad qabta aad u noqotid cuntooyinkan aan cunaynana waa inay yihiin cunto isku dheelitiran oo ma aragtay nafaqo leh oo ma aragtay wax ku gelinaya oo faa'iido ka helayso waa inay yihiin faytaminada waa inaan la ilaawin vitamin D vitamin C maxaa la dhahay iron yani waa inaad vitaminadaadana aad wadatid وهذا واحد أركيسه هو يبدأ أنا نرفس أو ما أركتي أم عادس هو صرتي بانك كعينه أو وحق بسن كريمين أختار كعتك فيتامينات هذا ماش أي جوجان سوقه وحي كار لمن قاضو سياد هو يفي عن وحيئة وما أركتي عافيمات قبتها أظن قتيد أو عرور إن صار كريسة نفتي إذا أنا وقبن كريسة هوري وصعن كريسة إن waxay maraysaa in 18 minutes buu fiidiyoogu marayaa fiidiyooda dhaadheer ma jeceli marka waxaan rabaa inaan ku soo koobo programkan intan insha Allah ta'ala programka noocan waxaan rabaa in hawada soo mariyo wixii aad xiiseynaysaan si gaar ah haday jiraan ila soo socodsiiya insha Allah intaan ku kulmi doono fiidiyogan ka xigi doona waxaan idinkaga tagayaa salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh fadlan ha ilaawin inaad ma aragtay aad fiidiyoyada dad ka heshay suulasha aad taagtid dhiirigelin bay ii tahay aniga waayo waqti baan soo geliyay in dadka aan u faa'iideeyo ma aragtay marka suulal yar oo taagtay faa'iido ay aniga aan u arkayo ii tahay baranka yar haddii aadan subscribe aadan taaban please taabo ma aragtay si markaan video sameeyaba uu hore kugu soo galo aadan u miskarayn fiidiyoyadayda insha Allah ta'ala waxaan isku ognahay khayr waad mahadsantihiin aad baad u mahadsantihiin sida markasta aad ma aragtay aad supportiga aad ii siisaan oo ii garab taagan tihiin gabdhaha idaawada iyo wiilasha idaawadaba waan idin mahad celinayaa markasta insha Allah waxaan idin rajaynayaa inaad faraxsan tihiin oo ma aragtay aad ii wacan tihiin markasta intaan ku kulmi doono videogan ka xigi doona waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo